مناسبة gogoldhig ee sanad guurida koowaad marka la aasaasay caawa oo kale ayay u dabaaldegaysaa gogoldhig Media Production Company oo ah shirkad markaasi si gaar ah loo leeyahay ujeedadana ay tahay inay daboosho baahida bulshada ay u qabaan media production. waxaan rabnaa inaan markaan fadhiya ku soo dhaweyno mudane ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hadda nagu soo biray kana qayb galaya munaasabada caawa ee sanad guurida koowaad ee markii la aasaasay gogoldhig Media Group. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo mudane Siciid Maxamed Maxmuud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo caawa xilkiisana farxad ugu yeeshay mudane ku soo dhaweeyo munaasabada dhammaan marshafka ka soo qaybgashay xafladda sanad guurida gogoldhig production company. waxaan u salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaca ka garan karta marka gogoldhig wax walba urur qabanaya adduunka waa inuu gogoldhig leeyahay. waxaan aasaasnay waxaan moodaa magac leh mataqaana ismi calaa musamma inuu wax walba urur qabanaya inuu gogoldhig u yahay waxyaabaha advertisingka publishingka. marka waxaa weeye magac qiimada ayaa meesha ku arkaa. waxaan u arkaa mataqaanaa in ay tahay waxyaabaha aasaas ku ah arrimaha horumarinta bulshada khaasatan daa'irta soo baxaysa ee waxbarashada wixii loo baahdo advertising ama xafladaha soo dhaweynaha leh. marka waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiis inay noqoto shirkadii sii guulaysata sii horumarta gogoldhig Media Production Company. waxaa weeye maslaxaadku ummadda bulshada Soomaaliyeed. waxaana farxad noo tahay inay shirkadaha gaarka loo leeyahay gabdhaheena Soomaaliyeed ay soo kordhayaan inaysan niyadda ka jaban gabdhaheen ayna ku daystaan gabdhaha kale ee mataqaana maanta leh shirkadaha private sector-ka ayna u daynin fursadaha ragga yidhaah wax walba annagaa qabanayna wax walba waxaa la yidhi kullu rajul cadiim waraahu imraa. nin walba oo taagan gabar baa ka dambaysa. marka waa inaad gabdho u taagnaateen wax walba oo wax bulshada lagu horumarin karo. waana ku mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum.